مبارك سعيد إبراهيم شردون وكم أساسياشي دقمة عرمو سيدي نوقنا هاي عرمو واحد أساسي كون سقال بقول في سقاشي من سنة بشي سنات وحين دقمة قادتي سيدي لباتنكي بشي سنات لبقنا يسدحي خاطنا وحلك هايو قدوميه ستحات يقدومي كحيانكي ستحات يحوغيه ستحات دقمة داسي ودقمة آدم بلارن وكلميزا سدح قبول وكمدا قبولة بولان سيدا قبول كهايلان كبري iyo kaka sida awgeed mudane madaxweyne waxaan si diiran aan ugu soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka dadweyne afka degmada Carmo iyo deegaankeeda madaxweyne waxaad ku guuleysatay mustaqbalka Puntland Dr. Abdulwali Maxamed Gaas kaasoo badbaadiyay qarankii shalay maanta aan ku xulanay Puntland badbaadinteeda iyo gaarsiinta barwaaqo waxaan kaloo u hambaliyaynayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaan kaloo mudane madaxweyne waxaad qaaday xil isbedel ku sifaysan waxaan kaa sugaynaa waa ficil iyo dhulka gaariwaaga dowladihii hore u bixiyeen oo aad gaarsiiso adeega arrimaha bulshada oo ay xaq u leeyihiin Puntland ku xukun cadaalad fuli hal hayskaagii ahaa shalayna badbaado qaran maantana badbaado Puntland iyo gaarsiinta barwaaqo mudane madaxweyne waxaan halkaan kaaga soo gudbinayaa Carmo waa degmada aad u soo dhaweynaysa oo kula shaqeynaysa amnigeeduna waa xasiloon yahay dadkeeduna waa dad aan dib lahayn waxaan ku rajaynaynaa inaad booqashooyinka ugu horeeya aad nagu soo booqato kulliyadana aad fiiro gaar noo siiso maadaama ay tahay kulliyadii labaad ee Afrika daryeel inaad gaar siiso maadaama ay ka bixeen taxfado kala duwan oo ilaa heer qaran ah iyo kuwa Puntland waxaan kaloo madaxweyne ka rajaynaynaa oo ka sugaynaa in aad hore u sii qaado xiriirkii iyo shaqadii xiriirka Puntland iyo Soomaaliya sababtoo ah waxaanu nahay hooyadii Soomaaliya waxa waaye Soomaaliya waa inay gaarsiin dhamaanteed ay noqdaan one man one vote khaasatan maamulkii ka horeeyay taladu iyo xukunku meel ay u joogeen heshiisyaduna meel ay u joogeen wax qabad waxaan ka rajaynaynaa in wixii macquulana aad meeshooda ka sii wado wixii kalena dhawaato ay gooranka hadalkeedu noomayaan waxaan kaloo ka rajaynaynaa inaad gaarsiiso shantaas sano qorshaha koowaad labaad saddexaad aad ka dhigto amniga barwaaqada iyo in la helo doorasho one man one vote oo dadku ay xortu ninkay rabaan soo doortaan taasina waxay ku noqonaysaa sharaf shalayna waxaan ugu ogeyn sharafta ra'iisul wasaaraha marka ahayd aad gaarsiisay miraha iyo muraayada maanta Soomaaliya ka muuqanaysana waa mid aad adigu keentay halhayskaagana waan sugaynaa iyo sida khaaska aad ula shaqeyn doonto magaalada Carmo iyo deegaankeeda waan ku sugaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi بس عافظ ضاعت مع ده
حاجة عافمات كاديتاي بلغادي فربان بلغادين عبد الولي وحن كان شيرينا ذاتك ما قرنيسا عافماتك iyo waxbarashada in aad kor u qaado waa laga maarmaan qof walba diyaar wuxuu yahay isbedelka waana ay sugayeen waxaanu leenahay madaxweynaha cusub oo freshka madaxweyne ku-xigeenka cusub oo freshka ra'iisul baarlamaanka cusub oo freshka waxaan leenahay soo dhawaada meelihii caafimaadka waxaa ugu dhameeyey dowladdii horeeto maxamed siyaad bare بلاش وحول ببلاش هذا إن بلاش الوحول وحنقول جوبا عنها إن بلاش وحول وحبر الشدية أتبلغ عدين غيب إذا كمدي سودو هذا يقع مفر ما قصدنا فريش باتين ومدور الديار بيجين تاي فريش له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا waxaan ku soo dhaweynayaa wata isbeddelka degmada Carmo waxaan jecel lahay in isbeddelka la kaarko tan labaad waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha ka mid ah Saciid Wasabi ayuu ku soo dhaweeyay Saciid Wasabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلام يا أبو الشباب غيبين كالدول يسكتي مناسبة قيمة بدن السلام قيمة للناس يا شباب احنا في السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتن قدو waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa anigoo ku hadlaya magaca degmada Carmo guud ahaan isbeddelka cusub ee ka hana qaaday guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan leenahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka dhammaan waxaan leenahay isbeddelka soo kordhay soo dhawaada aad iyo aad baan maanta ugu sugayay aad iyo aad baan loogu doorsaday dadku way daaleen dadku wax badan bay ka daaleen iyagoo magaraysa maamulkii horeeto aanan hadda waxa ka sheegayno wax badan soo qabtay laakiin cabatooyin baa jiray cabatooyinkaas waxaan leenahay madaxweyne inaad qabto dadku aad iyo aad maaragtay ku bisgaayeen adigoo lagu xisaabtamayay aqoonta iyo waxyaalo badan oo aad ka sheegtay maaragtay markii aad keenayda ku jiday hadda waxa weeye qofka soo Puntland jooga meel kasta jooga magaalo waa kaad sugayay waana kugu dirteen waa lagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan lagu taageeray taageeradaas dowladdu waxay u tahay shacabkeeda qoyska waalidku joogo bay u tahay shacabkeedu hadda waalid wuxuu looga baahnaa ayaa lagaga baahan yahay inaad maaragtay aad ka qayb qaadato dibadhiska dalka khayraadka ku jira dalkana aad uga faa'iidayso amniga magaraysa iyadana maaragtay aad wax bay ka qabato madaxweyne barfusar maxamed cabdiweli aad iyo aad halkii lagugu jeesaday halkii lagu soo dhaweeyey halkii magaraysa lagaga qayb qaadatay inaad maaragtay aad in laga helo waxaan leenahay soo dhawow mar koowaad soo dhawow mar labaad soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. هذا واحد كسر وانا يا وياش أنا أبو دار
فكلي اسمك وطردت كابو على يكوسيني صوت ورعت كابو عبدي ولي